Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Allah u naxariistee Suldaan Yaafuus oo ka mid ahaa suldaanadii soo maray dowladdii Islaamka ee Cusmaaniyiinta ayaa waxa uu u jeedsaday halkaas iyo Masar isaga iyo askartiisii quwadda badnayd. Iyaga oo dariiqa ku sii jira ayaa waxa ay sii mareen bilaadu Shaam oo hadda dhaca waddannada Suuriya, Lubnaan, Falastiin iyo Urdun. bilaadu Shaam waxa ay caan ku ahaayeen bustaano iyo beero aad u wanaagsan oo aad u midho badan. Ciidamadii iyo Suldaan Yaafuus iyaga oo dariiqa sii socda ayaa waxa uu iskugu yeedhay Suldaan Yaafuus dhammaan ciidankii waxaanu ku yidhi, waa inaad gamcihiina gelisaan midhahan iyo khudraddan meesha taalla iyada oonan wax oggolaansho aanad ka haysan ninkii beerta iska lahaa. Markii ay ciidankii maqleen hadalka suldaanka ee uu ku yidhi, Suldaan Yaafuus waxa uu ugu talagalay haddii mid ka mid ahi uu gacantiisa ku fiiqo khudraddaas iyo midhaha meesha ka baxay ee aadka u badan in uu ciqaabi doono, welibana ciqaabta u adag, uuna la saaxiibi doonin ciidankiisana uu ka reebi doono. Markii ay ciidankii maqleen hadalka suldaanka ee uu ku yidhi, Suldaan Yaafuus waxa uu ugu talagalay haddii mid ka mid ahi uu gacantiisa ku fiiqo khudraddaas iyo midhaha meesha ka baxay ee aadka u badan in uu ciqaabi doono, welibana ciqaabta u adag, uuna la saaxiibi doonin ciidankiisana uu ka reebi doono. Iyadoo ay sidaa tahay oo suldaanku uu amray inay ciidanku cunaan waxa meesha yaala midhaha, ayaa haddana waxa uu suldaanku ku celcelinayay, war ciidanka xaaraanta cuni ma guulaysto, war ciidanka xaaraanta cuni ma guulaysto. Haddaba bulshadeennu in intee leeg ayay u baahan tahay tusaalahan oo kale iyo fahankaas uu Allah subxaanahu wa tacaala ku hibeeyey Suldaan Yaafuus. Daawade, su-aashu waxay tahay, ma isleedahay suldaankaas oo kale ayaa bulshadeenna ku dhex jira? Jawaabtaadu hadday tahay haa, xagga hoose noogu soo qor suldaankaas iyo magaciisa. Allah xaqayna fahansiiyo. Intaa baynu kusoo koobaynaa darsigeenna. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.